runtii sharaf weyn bay tahay inaan noqdo wasiirkii u horeeyay sida ay sheegeen odayaashu seelada soo dhex taaga waxaan qabaa in neefka xooligu yahay waxay Soomaaliland ku nooshay ama Soomaaliba ay ku nooshay sideedaba hooyada halka ku imanaysa neefka xoolaha waxa laga yaabaa inay intaas oo reer ay ka qoodiso ay ka maartay deew ka tago cadkiisii caanihiisa oo waxaan ku noolnahay muhiimadda marka wasaaradda xanaanada xooluhu waxay u qaabilsan tahay qarankan waxay u qaabilsan tahay waxa weeye inay caafimaadkiisa ka shaqeyso horumarintiisa ka shaqeyso daryeelkiisa ka shaqeyso dadkii xoolaha lahaana ayagana wixii ay la qaban karayso dhan ay la qabato inta marka laga reebo waxa ugu muhiimsan waxa horta marka hore aan doonayna idin sheego waxa maqlayseen inagu waxa weeye neefka xoolaha baan dhoofinaa neefka xoolaha wuxuu ka yimaadaa awaare wuxuu ka yimaadaa maxay tahay wadan Soomaaliya dhan ka yimaadaa kaalga ka tagaaba wuxuu baxaa uu ka dhoofa maxay tahay ama dekada berberu ka dhoofa sida maqlayseen amba mararka qaarkood media aba ka maqasheen waxa jira 3 macshar oo xoolaha dhoofka xoolaha ay maraan 3 macshar xoolaha laga dhoofiyo 3 macshar waxa loogu talagalay in caafimaadkooda xoolaha lagu ilaaliyo standardkii ay waafaqsanade wasaaraddu ay u ogolayd in lagu ilaaliyo waxa jirta maalmo dhaweyd amba intii imika bariyaanba waxa socday dawladda Soomaaliya in carqalad ku hayso xoolaheena carqalad ku hayso xoolaheena waligeed lama arag la siyaad barre cid xoolaha carqaladaysa amba xoolaha siyaasadaysa ninka madaxweynaha imika Xasan Sheekh wuxuu sameeyay inuu nin Arab ah yiraahdo xoolaha waxaan xidhay berbere ka dhoofiyay ayaan anigu u xidhayaa dadna niman warqad siinaya halkan waa Soomaaliland Xasan Sheekhna kama taliyo cid kalena kama taliso halkan dawlad madax banaan waxay leedahay waligeedba xoolaha halkaas ka dhoofi jireen cid kale oo arqaladayn jirtana ma jirto waxaan uga digaynaa aan leenahay xoolaha halka ka dhoofaya waxa weeyaan xoolaha Soomaaliland dariiqeeda mara cidna kama ogolin arqaladaysa anagu amba mid ha u xidhan amba midna u xidhin 3 macshar berbera waxaan u hakinay imika muddo waxay hakisay inuu kamala 4 cisha sababtan u hakinayna waxa weeye saa ogaataan maadaama iyada laf dhabarta xoolaha yihiin xoolaha dhoofka laf dhabarteena yihiin sababtan u hakinay wax kale ma aha waa inaan xaqiijino reer Soomaaliland inay xoolaha iyagu ay amarkooda ku baxaan aanay laakiin Muqdisho amarkeeda ku bixin warqad sita oo xoolaha halkaas soo maray cashuurta Muqdisho ku shubayo miyaan aqbalayna aqbalayna maaha weligeedna naga suura gali mayso qofka silaa Muqdisho ka soo qaado warqadna oo xoolaha berbera kaga dhoofiyaan iska hadlay xukam jiraan inta marka laga tago anigu waxaan diyaar idin lanahay wasaaradda xanaanada xoolaha dawnahay inaanu dardar gelino shaqadii isbedelka ayaa ka mid tahay inaynu wixii hore wax ka bedelno haddii aan la idin iman jirin waxaan samayn doonaa maalin walba oo la idin imanaya gaari halka joogo oo emergency ah oo wixii loo baahda in qaado baynu sameeynaa habkan aynu xoolaha u dhaqan habkan aynu xoolaha u maamulnana waxaan doonaynaa wax badan ka bedelno sababta waxa weeye neefka xoolaha markuu imika la soo qaaday gaariga laga rogo imise meeyada ka dul qaadaan intaas oo dhan habka xoolaha loo soo reeyay wax ka bedelnaa baynu baahnay sharciga way nagu qoran tahay wasaaradda xanaanada xoolaha habka loo maamulayo shuruucdeena sheegaysa neefka xoolaha wax la doonayaa inaan dhibaato iyo culays toona dareemin halkan marka laga raro meel kale lama istaajin karo neefka xoolaha marka halka laga raro inuu halkii loogu talagalay inuu toos u istaagaa aniguna xoolo ma aan dhoofinay nin waxaan oo dhan si fiican u garanayaanahay aad noo fahansan wixii aanu idin la qaban karayno dhan insha Allah waan idin la qabanayna maanta halkan nagu soo horeynay seeladana waa seelada labaad ee reer Soomaaliland ay leeyihiin xoolaha marka insha Allah waxaan samayn doonaa wixii dhibaatay carqalad idinku ah dariiq iyo meel line amartaan ayaan idin samayn doonaa oo markaba laga soo jawaabo idinkana waxa la doonayaa xoolaha iyo daryeelkiisa iyo wixii loo baahan yahayba in ay idinkuna maartay aydan qabin oo waa ka mamnuuc xoolaha in lagu qolo meel aan hayn kawaan bay loo sameeyay caafimaadkiiba ku jira neefkan marka la qalayo waxaynu baadhnaa dariiq dhan buu maraa caafimaadkiisa la eega inagu waxaynu baahanay cunto iyo cad bad qaba in bulshadeena u gudbo
neefka lagu qalaya meel aan ahayn kawaanka carqalad buu runtii ku yahay arrintan waxbaan ka qaban doonaa haddii la yidhaahdo